السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal meel kasta dunida nagala socotaan wahabeenimo axada bisha January ay sii galayso 9 sanada 2022 qodobada aad barnaamijkeena ku maqli doontaan waxa kamid ah dagaaladii ka socday waqooyiga gobolka Tigray oo halkoodii ka sii socda iyo wadanka Eritrea oo wada dandaansigii ugu xumaa abid dabaaldegyo waaweyn oo ka socda dalka Itoobiya iyo waliba wadamada adduunka oo ay sameynayaan qaar kamid ah qowmiyadaha dalka Itoobiya kadib sideyntii maxaabiistii siyaasadeed iyo sababaha loo reebay maxaabiis Soomaali ah oo ku xidhnaa xabsiyada dalka Itoobiya dhanka Soomaalidana waxa ugu weyn shirkii ka socday Afisiyoni ee u dhaxeeyay Ra'iisul Wasaare Roble iyo madaxda maamul goboleedyada oo la sheegay inuu soo gabagaboobay iyadoo wax heshiis ah aan halkaasi laga soo saarin qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan aad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada barnaamijka waxa uu heliyay saaxiibkay Maxamed Wacane oo alaaba indhaha ku haya xaaladihii ugu dambeeyay ee geeska Afrika Wacane soo dhawow maxaa ugu dambeeyay dalka Itoobiya dagaaladii ka socday waqooyiga dalkaasi oo la sheegayo in ciidamada dalka Eritrea ay gudaha u soo galeen dalka Itoobiya halkaasina ay isku farasaareen iyaga iyo kooxdii TPLF aad baad mahadsantahay Cabdi Xakiin dalka Eritrea ayaa maalmihii ugu dambeysay wuxuu dandaansi xoogan u ka waday xuduudda ay la wadaagaan gobolka Tigray halkaasi oo dagaalo ay ku dhaxmarayeen ayaga iyo ururka TPLF dagaaladii ka socday waqooyiga dalka Ethiopia ayaad moodaa inay u jahaystay dhankaas iyo xuduudda Tigray iyo Eritrea labadan qowmiyadood ama yaani Eritrea iyo tan kuwan Tigray ayaa in ka badan 27 sano waxay ka dhaxaysay cadaawad aad u weyn kuwaasi oo salka ku hayay arrimo xuduudeed iyo sidoo kale to siyaasad dhanka dhinac kasta siyaasi darteed waxaad moodaa in Eritrea ay rabto inay ka codgoosato Tigray oo hadda aan haysanin awood ay iskaga dhiciso يعني دولتاasi Eritrea marka dagaaladii halkoodii ay ka sii socdaan waxaana jirto sidoo kale to abaabul xoogan oo wadan xooga TPLF sifa iskaga dulqaadaan dagaalada ka socda halkaasi waan gartay ciidamada dalka Eritrea gudaha dalka Itoobiya soo galeen baa leeyahay meel ay soo gaareen iyo wax magaalo ah oo ay galeen ma jirtaa sida hadda xooga TPLF ay sheegeen waxay u sheegeen in yaani ciidamadani Eritrea ay mar kasta ay ku soo qaadeen dagaalo joogto ah ciidamadani waxay sheegeen inay garab siinayaan ciidamada dawladda dalka Ethiopia dagaaladii ugu waaweyn ee ka dhacay dalka Ethiopia waxay qayb ka ahaayeen ama qayb ay ka ahaayeen ciidamada Eritrea sidaas darteed ciidamada Eritrea waxay ku jiraan gudaha gobolka Tigray laakiin se lama carabaabin magaalada ay ku sugan yihiin iyo sidoo kale deegaamada ay ka joogan halkaas waan gartay waxa la sii daayay sida aan la soconay xalay maxaabiistii u xidhnaa siyaasadda dalkaasi Itoobiya oo ay ku jireen madax sare oo ka tirsan qowmiyadaha dagaalka culus ka waday dalkaasi Itoobiya maxaabiistan la sii daayay maxay xaaladda ka bedeli karaan maxay ku soo kordhin karaan dagaalada ka socda dalkaasi Itoobiya Cabdi Xakiin saad ogeyd ba ururada ka dagaalamaya dalka Itoobiya intooda badan waxay codsanayeen in la sii daayo maxaabiista u xiran arrimaha siyaasadeed kuwani hadda la sii daayay waxay hayeen asaasihii ururka TPLF iyo sidoo kale to ninka lagu magacaabo Maxamed Jawaari oo ah nin aad saameyn ugu leh gobolka Oromia ahaana yaani inuu nin aad u weyn oo yaani ay ka dambeeyaan dadka Oromada ama يعني معارضك iyo sidoo kale to dhamaan ururada ka dagaalamo gobolka Oromia sidaas darteed ururadani ama nimankani hadda madaxda ay la sii daayay waxaad moodaa in yani ay dawladda Ethiopia ay sideynteeda ay yani ugu fadhiday micna aad u weyn kadib markii ururada intooda badan ay codsadeen in la sii daayo saraakiishani ama ragani waaweyn marka waxaad moodaa hadda hadii la sii daayay in xataa wada hadaladii la rabay inay dhacaan dib u dhac badan uu ku imaaday inay furmi doonaan wax badan uu iska bedeli doono siyaasadda dalka Ethiopia saan la soconno waxaa la sameeyay dabaaldegyo waaweyn oo ka dhacay qaar ka mid ah dalalka dariska la ah dalka Itoobiya iyo waliba caasimadda dalkaasi Itoobiya yaa dabaaldegayay qowmiyadaheese u badnaa dabaaldega horta dadka dabaaldegaya ama qowmiyadaha dabaaldegaya intooda badan waxa weeye qowmiyadda Oromada iyo sidoo kale to Tigray
iyo sidoo kale qoomiyada kale laakiin dabaaldegani waxaa ka baaqday qoomiyada Soomaalida oo intooda badan dadkii ka xidhnaa aan la soo deynin dabaaldegyada waxay ka kala socdaan wadamada dariska la Ethiopia iyo sidoo kale caasimadda dalka Ethiopia oo ay u badan yihiin ama ay iska leeyihiin sida la sheego qoomiyada Oromada sidaas darteed Oromo meel ay joogto maanta waxaa socda dabaaldegyo waaweyn oo lagu soo dhaweynayo ninkani aadka ugu weyn ayaga sidaas darteedna waxay sheegeen in ay yani soo dhaweynayaan ayna u hambalyeynayaan sii deynta la sii daayay sargaalkani sidaas darteed waxaa sidoo kale dabaaldegyo ayagana wado qoomiyadihii kale ee maxaabiistii arrimaha siyaasadeed u xidhnaa loo sii daayay balse Soomaalida waxaad moodaa maanta ayagu inaysan ka hadlaynin haldoorkoodii xidhnaa waan gartay intaan Soomaalida u gelin qoomiyada Tigrayga oo laba nin oo saameyn badan ku leh laga sii daayay xabsiga Addis Ababa iyagu maxaa waro ka soo baxay dabaaldegyadaas ma ku jiraan horta sidoo tayba Tigray ayagu xasuuq aad u weyn baa loo geystay mana joogan maanta meel ay ku yani ku dabaaldegaan ama ay ku soo dhaweeyaan maxaabiis ka xidhnayd waxaan ognahay in yani dadkoodii ay meel ay geeyaan laayihiin dhaawacoodii iyo sidoo kale dadkii xanuunadii ka dilaacay dalka ama gobolka Tigrayga kuwaasi oo isbitaaladii intooda badan ay u xidhan yihiin dawala'aan iyo waxyaabo badan oo aad u badan oo asaasiyaadkii ah sidaas darteed waxaa ayaga hadda maanta uga farxad badnaan lahayd in loo furo godoomintan la godoomiyay godoonka laga qaado sidaas awgeedna waxyaabaha asaasiga ay u baahan yihiin in loo furo ayaa uga muhiimsanaan lahayd lamana soo sheegin ama xooga TPLF ma aysan sheegin ama afayeenka TPLF iyo dhamaanba gobolka Tigrayga ma aysan sheegin wax dabaaldega oo ka dhacay dhamaanba gobolka Tigrayga ma jiro marka laga hadlayo maxaabiistan hadda ay sii deysay dowladda dalkaasi Ethiopia oo ay sida dadka falanqeynaya arrimaha Ethiopia ay sheegayaan ay leeyihiin waa dabin ay rabto dowladda Ethiopia inay ku soo xirgeliso qoomiyadahan dagaalamaya ama kooxda TPLF-ta ee ugu tunka weyn hadda jabhadahan dagaalamaya iyadu waxa ku jirtay labada qodob ee codsadeen qodobka maxaabiista iyo qodobkan godoominta marka hadii hal qodob loo fuliyay oo ahaa in maxaabiista la sii daayo qodobkan kale ee godoominta ma la filayaa goor dowladda Ethiopia ay fulin doonto oo hadda u qorshaysan ma jira dowladda Ethiopia sidoo kale ciidamadeeda ugu badnaa waxay ku sugan yihiin xuduuda gobolka Tigray iyo kan Axmaarada iyo kan Tigray iyo Canfarta ciidamada aad u tiro badan ayaa halkaasi jooga oo difaac uga jiro godoomintana qayb ayay ka yihiin ciidamadaasi halka la geeyay waan gartay wacane haddii aan halkaasi kaga tagno arrimaha Etoobiyada kore haddii aan u soo dhinaca deegaanka Soomaalida maxaabiis fara badan oo siyaasadeed baa ku xidhnaa magaalada Addis Ababa oo ka mid yahay madaxweynihii hore deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamed Cumar iyagu xagee ku dambeeyeen xaaladooda maxayse dowladda Ethiopia halkaasi ay ka qabtaa aad baad mahadsantahay Cabdixakiin horta waxa la filayay maxaabiistan la soo deynayay inay ka mid noqdaan maxaabiista Soomaaliyeed u xidhan arrimaha siyaasadeed balse markii lagu dhawaaqay ama liiska la soo saaray maxaabiista la soo daayay kuma jirin wax Soomaali ah oo inaba yaraatay halkaasi ku jiray ma jirin waxaana la filayaa in dowladda deegaanka ama madaxda dowladda deegaanka ay ku adkeynayaan ama ay ku adkeeyeen oo la hadleen ra'iisul wasaaraha inaysan ka mid noqonin maxaabiistaasi maxaabiistani saameyn weyn ay ku leeyihiin deegaanka Soomaalida waxaana isbedel ku iman kara arrimaha siyaasadeed ama siyaasadda Mustafa Cagjar hadii maxaabiistaasi la soo daayo marka maxaabiistani waxaad moodaa in ay yani u xidhan yihiin hadda dowladda deegaanka Soomaalida oo u xidhan dowladda federaalka Ethiopia waan gartay haddii aan dhinaca magaalada Muqdisho iyo caasimadda dalka Soomaaliya shirk baa ka socday u dhaxeeyay ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada iyo waliba gudoomiyaha gobolka Banaadir shirkii waxa la leeyahay waa soo gabagaboobay wax ka soo baxay oo weyn oo hadda la sheegi karana ma jiraan shirkaasi xagee ku dambeeyay wararka soo baxayana maxaa ka jira Cabdixakiin sidoo kale shirkani muddo ayuu qaatay maalintiisii lixaad ayaa maanta ah sidaas darteedna shirkani horta wax muhiim ah oo hadda loo sheego bulshada kama soo bixin arrimihii lagu muransanaa ama qodobadii la isku haystay waxa kamid ah qodobka
xaqiijinta amniga qodobkaasina kor ayaa loo laalay sidaas darteedna wax weyn oo hadda saameyn leh oo ka soo baxay shirkaasi ama uu ku dhamaaday ma jirto waxaana jirto waan kaleeto oo lagu xalinayo arrimaha shirkaasi uu ku burburay iyo sidoo kaleeto waxyaabaha la kala tabanayo labada dhinac ee isku hor fadhiyay meeshaasi ay ku kala tageen waan gartay wali kala tagna ma soo gaadhin laakiin shirkaas inuu soo gabagaboobay oo wali qodobadii ka soo baxayna aan warbaahinta loo soo bandhigin ayaa na soo gaadhay aad iyo aad buu mahadsan yahay saaxiibkay maxamed wacane oo ila falanqeynaya xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolka geeska afrika intaan ku kulmayna warkan warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa saaxiibayaal sidaas iyo nabadgelyo